daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed. barnaamijkan maanta waxaanu ku falanqeynaynaa ninka la yiraahdo Mr. Micheal Rubin oo u shaqeeya American Enterprise Institute maxadka mashaariicda Mareykanka oo ah xoogsato ama wax la yiraahdo think tank qodobo uu ka qoray Somalia iyo Somaliland isagoo 80% ku wajahnaa weerarkiisu ninka la yiraahdo Donald Yamamoto ambassadorka Mareykanka ee Somalia oo uu ku xiriirinayay ninka ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa Ahmed Abiy. haddaba waxaan idiga sheekaynayaa ninka la yiraahdo Mr. Micheal Rubin ee lagu lahaa waa aqoon-yahan waxaana inay tahay disinformationkii qayb ka mid ah ninkaas oo heegadu ku soo casuntay magaalada Hargeysa oo ka tirsan ragga rambuusiga ah ee mushaharka qaata lana shaqayn jiray ilaa Silayo intaanu xukunkan imanin. organization kan ku shaqeysta organization kan oo xoogsata ah oo la yiraahdo maxadka mashaariicda Mareykanka oo meel alaale iyo meel uu ka soo galo dawladda Mareykanka iyo go'aan uu ku leeyahay midna aanay jirin laakiin la yiraahdo waa think tank oo ahaa raggii Silayo meesha keenay ee beriga la kireysteen oo isaga iyo ninkii loo oran jiray maqaam sare markay ka qayb galeen shirkii Mareykanka Soomaalida Mareykan US Somali Conference shirka generaaladii hore ee ciidamadii Soomaaliya ka qayb galeen oo galaal ka mid ahaa markii lagu qabtay New York. ragii lacagta la siiyay ee lagu soo saarayay Silayo ayuu ka mid ahaa imikana Hargeysa ayaa looga yeeray. waxaan u qorayna waa pious waa wax dhan u janjeera oo uu doonayo heegadu mar labaad inay tusto inuu caalamku arintoodii ka hadlayso markii uu caalamku ka soo xidhmay. ragga heegadu ku shaqeysato waxa ka mid ah ninkiisna observerska ah ee la yiraahdo Irishka ah ee doorasho ku sheegtay horjoogayaasha hor socday ee la yiraahdo Dr. Michael Walls baisna ka mid ah ragga ku jira bayliska ee lacagta la siiyo isaga iyo ninkaniba nimanka heegadu ay u adeegsato arrimaha internationalka ee soo dabar go'ay imika ee ku soo ururay go'doonka ayay ka mid yihiin. waxaan uu meesha ku qorayna anoo idin kormari doona waxay ku socotaa oo dhami waxa weeye maadaama EUD iyo US labadiiba World Bank iyo IMF tiiba ay ka soo istaagtay musuqmaasuqa heegada waa in dacaayad dib loogu soo furaa oo dib loogu cararaa xoogsatadii lagu shaqaysan jiray. waxaa ka mid ah meeshan warka uu ku qoray ninkan uu ku weerarayo halkan in waxooga yar oo neefa dib loo soo geliyo maamulka heegada. ninka la yiraahdo Micheal Rubin waraysi ayay la yeelatay website-ka afka Ingiriisiga ku baxa ee ay heegadu leedahay ee ka mid ah propaganda disinformation-ka ee la yiraahdo somalilandchronicle.com. haddii aad eegto waraysiga uu siiyay marka uu Hargeysa ka soo noqday waad arkaysaa inay yihiin laba qof oo heega ah oo is waraysanaya. muuse biixi inuu ka wanaagsan yahay ma hubo dadku isagay doorteen ninkii loo oran jiray Silayo. Micheal Rubin waxa uu qoray iyo waxa waqtigan keenay inay kalifto oo la yiraahdo waxa uu Yamamoto ku riixaya ambassadorka Mareykanku isagoo ay isla xiriireen ninka la yiraahdo Dr. Abiy Ethiopia. Somaliland inay khasab kula hadasho arrintaasi waa arrin waxba kama jiraan. Mareykanku ma daba galo Ethiopia ayaa Mareykanka policy-giisa raacda. Micheal Rubin ninka xoogsatada ah ee ku jira danbaysay lacag ku qaadashada meesha isaga iyo ninka la yiraahdo tuuga la yiraahdo Michael Walls ee dhaqtarka sheegtay ee Irishka labaduba wuxuu yiri ambassadorka Soomaaliya oo fadhiya Yamamoto Mareykanka Donald Yamamoto ninka la yiraahdo waxaad moodaa inuu meel fog u talaabsanayo ayna isu tageen isaga iyo ninka la yiraahdo Dr. Abiy ay meel isugu yimaadeen. waxay doonayaan inay si xoog ah dib isugu celiyaan Soomaaliya iyo Somaliland. waxaanu idin sheegin ee uu idiga qariyay ee uu qaybta ka ahaa isagu ninka la yiraahdo Mr. Rubin Micheal Rubin waxa weeye inuu Silayo heegalanka isagu hore u soo qaatay oo ku soo qaatay shirkii Ingiriiska maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan iyo Sheekh Shariif madaxweynihii waqtiga dawladda federaalka madaxda u ahaa markii meesha la isugu keenay. kaas oo kani markii meesha uu inqalaabay uu sideedii ku dumaalay lana doonayay in sidii hore lagu sii wado ay noqoto dabagaalle abeeso dushaas uu ka qabaa isagoo Silayo isagoo uu lacag ku bedeshay iyo dekada iibin ay isla qaybsanayeen nimankaasi musuqmaasuqa moodayay in sidii ku sii soconayso after inqalaabka laakiin ay shaqayn weyday. marka arrintii reunification-ka dib in la isugu soo noqdo wada hadallada ee hore loo sii bilaabay ee la aqbalay ee maamul goboleedka lagu qaatay umba imika uu u sheegay Yamamoto iyo ninka la yiraahdo Berlanka ee EU-da isaguna ambassadorka ah labaduba inaan ninkan waxba lagu aamini karaynin.
arrintanna muuse wuu ogiyey ina ciro wuu ogiyey ninka la yiraahdo ina cali waraabe inay meesha tahay dowlad goboleed haddaad dib u xusuusataan maalintii uu cabdiraxmaan qaylinayey ee uu lahaa ninka Silaayo waxa inal wadan oo dekada waxa inoo saxeexay dowladda federaalka oo waxa noo sheegay ninkii ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka qarqaash dib halka ugu noqda halka waxa idiga muuqata inay meesha waligeedba ay wax u saxeexayeen iyagoo dowlad goboleeda dowladda federaalka ee muqdisho fadhida arrinta meesha laga doonayaa imika waxa weeye ay ka cakirantay ay muuse kaga cakirantay saddexduba way isla ogyihiin labada mucaaradka sheeganaya iyo isaguba dadkii baan loo sheegi karayn inay meeshu maamul goboleed tahay waayo dad baa hore loogu soo laayay waxa ku socotaan koonfur imika waxa la wareegaalaysanaya sidii loo sameyn lahaa dowlad heega aan ku sii socdo arrinta Rubin turkigu daacad kama aha buu yiri arrinta Somaliland ama Heegaland iyo Somalia sababtoo turkigu wuu ogyahay waxa la soo kala saxeexday inay ahayd maamul goboleed maadaama ay ogyihiin inta maamul goboleed turkigu way u sheegeen in lagu dhawaaqo maamul goboleedka konsuladna waa kuwa meesha u jooga safaaradooduna waxa ay fadhidaa meesha la yiraahdo Muqdisho Yamamoto wuxuu sheegay internationalka iyo US labadaba dhaqaalahooda inay gacanta u geliyeen dowladda federaalka iyadoo lagu qiyaasay 1 bilyan sanadkii u dambeysay in la geliyay wadanka anoo sharixi doona dhulkii la kala geliyay markii waraysiga la yeeshay sababta loogu dhiibay wax kale maaha dowladda federaalka waxa weeye waa check and balance IMF ta ayaa baadhay World Bank ayaa baadhay musuqmaasuq ka jirin 8 nin oo wasiir ah oo isku reera ayaa fadhiin sababta awgeed ba keentay inay kuwana cunaha la qabto maadaama la arkay inaanay wadi karaynin Dr. Yamamoto waxaan ku daba jirnaa disinformation ka la gudbiyay disinformation kaas ayuu wali ku jirnaa ay wado ninka odayga ah ee la yiraahdo Rubin iyo heegadu ay wadaan Ethiopia dowladda Tigraygu way dhacday isla shaqaysan jireen maamul goboleedada ee ummadda Soomaaliyeed wixii xagga ka soo cararana inta la qabto laga iibin jiray sababta ayaa halkan ugu galgalanaya maadaama aan iyagu Ethiopia si bareera ugu oran karaynin sidii hore nolol shaqeeya oo ay soo xidhay barnaamijkaasi waa in la helaa qof dibadda ka qayliya oo idinka muddo yar la idugu mashquuliyo macna kale oo ay leedahay ma jirto labada safiirba privately aad bay uga cawdeen waa Yamamoto iyo Berlanga ninka la yiraahdo Muuse Biixi waxay aad iyo aad bay u adagtay in la shaqeeyo wax lagu aamini karaana ma jirto waa khayn dhalay marka halkan waxay diga muuqataa in corruption iyo nepotism nin jeclaysi sad bursi aan caalamku taageeraynin sababtaana imika la ugu soo dhex tuuray disinformation kan la leeyahay Yamamoto iyo ninka la yiraahdo Api ayaa ku riixaya Muuse Biixi inuu qasab kula midoobo looma baahna inuu la midoobo horaa loo soo qaatay sidii la idigu sheegi lahaa ayaa la laayay waayo isagu cidna wakiil kama aha 8 nin oo heega ayuu wakiil ka yahay marka kuma dhaco inuu yiraahdo waanu horaanu arinta u qaadanay waxa la doonayaa in channel kale la idii soo mariyo kale idii soo mariyana waa ninkan xoogsatada ah ee loo idigu sheegay tintanka riyadii taliskani way soo gaabatay horay Soomaalidu u tiris waa ab ogaa iyo abaare keentay nidaamka meesha ka taagani waa abaare keentay waa arkaysaa inaan wax macna oo buurani aanay meeshan oo lin 2000 oo qof ayaa meeshii gobolkii cagaagnaa ee baahidu taalay wax la geeyay oo ay diidanaayeen 500 ee salaxlay ee ahaa barakacayaasha xitaa musqulo ay dumarka umuluhu galaan looma qodin waayo kuwaasi kama tirsana iyagu Heegaland ee waxa ka tirsan gobolka cagaagan idinkana waxa la doonayaa inay hor galaan afmiishaar urmiishaar iyo indhamiishaar taasi way soo gaabatay ayaanu leenahay geela markii ku heesayaan nimanka geel jiro wax yaadaan ndaqashu kuugu dhabar jabay ninna dhuuni buu ku dhex joogaa si kastaba arintii heegadu way soo daba gaabatay xaaladeedu sababtaas ana keentay disinformation kan cusub ee imika la inagu soo dhex tuuray ee ka qaylisiisay ummad badan iyagoo aanay fahmin halka ay dabayshu u dhacayso horaa loo yiri nin rag dhalay xeer laguma duraanto taa macnaheedu waxa weeye maadaama aynu fahanay in aanu Yamamoto wax gaar ah oo meeshan u qaba Heegaland aanay jirin laakiin uu xaqiiqda u sheegay dawladdiisa inaan lagu aamini karin 1 penny iyadoo loo ogyahay guriyaha beeraha beenta haamaha shidaalka ee intaba ay gacanta ku wada hayaan ragga isku noocaah horay uga maahmaahday Yamantu oo ay tiri ramyil hadaf nail sharaf ninka goolka dhaliya ayaa ciyaarta badiyay waa ciyaar wanaagsan baa la soo ciyaaray iyo
gool saacadii u dambeysay daqiiqadii u dambeysay baa gool layga dhaliyay iyo waxaas ma shaqeeyaan Somaliland ayaa u taraasulay iyo wixii la idigu sheekayn jiray political mistake ayaa mar labaad political failure la idigu soo wadaa in la idigu hirgeliyo maamul goboleed ay idin soo gudbinayaan kuwa mucaaradka sheeganaya iyagoo kaga wakiila Muuse Biixi iyo heegalaanta in yar baan doonayaa dadka dhalinyarada aan kor cararo dawladda Ethiopia waxba uma yeeriso dawladda Mareykanka iyo Mamoto ayaa ka sareeya Dr. Abiy dog waagis detail eega ayaa dibka ruuxa adibi ugu celiyo markii ciidamada Ethiopia Muqdisho la geynayay yaa u diray administration-kii waqtiga jiray ee Bush ayaa u diray North Korea ayaa hub looga soo iibiyay iyaga geeyay Muqdisho markii dambana iyaga ka soo saaray haddaba waxa laga diday aan halkan idin sheego ee loogu kacsan yahay ninka la yiraahdo ambassador Yamamoto markii uu meesha yimi wuxuu arkay ay u soo gudbiyeen European Union-ku corruption-kii dawladdiisa ilaayo iyo tan Muuse Biixi ee inqilaabkii ay ka gashay wadanka dhamaantii intuu leeka maadaama ay muddo dheer safaaradda Mareykanku ka maqnayd Soomaaliya arrintii waa la darisay waa la eegay waa la diray waxa la isla gartay in aan shilin dambe gacanta loo gelin xitaa RRU-da lacagta laga joojiyo wuxuu rajo weyn baa ka qabaa wareysigii baan idin wadaay markan kor cararayaan kor ka xaadinaya Yamamoto rajo weyn baanu ka qabnaa khataraha iyo caqabadaha Soomaaliya ka hor imanaya inay ka gudubto ay ka mid tahay abaaruhu ay ka mid tahay argagixisadu ay ka mid tahay musuqmaasuqu dawladda Mareykanku waxa ka go'an oo ay go'aansatay in Soomaaliya oo dawladda federaalka ayaa laga hadlay ay gacanta u geliso dhammaan qalabkii ay u baahnayd inay ku shaqaysato federaalku waxay si quman ay u taabanayaan oo ay u dareemayaan waxa ay u baahan tahay ummadoodu oo aqoontii education-ka inay horumariyaan inay shaqo abuur ummadooda u sameeyaan waxa ay dhiseen aan idin sheegi karaa waa kalluumaysigii oo dib u soo noqday oo dadkii shisheeyaha ay kalluunka Soomaaliya guranayay laga didiyay shaqo ay u abuureen dadkii dhalinyarada shaqo ay u abuureen haweenka iyaga oo Beentii iska soo cafiyay markii ay cadaatay in aanay wax musuqmaasuqa aanay ku dhex jirin iyo warshada caanaha oo ay dib u dhiseen in frustration-kii ay ka caawinayso dawladda Turkigu oo sidii loo baahnaa u socda iyaga oo account ka soo furtay Federal Reserve-ka Mareykanka halkan dawarsiga lagaga jiro hadalkiisii waxa kamid ahaa aid is not sustainable bariyada laguma dhergo calool baahani ma aha mid cilmi keenta halkana waa maqlayseen wixii uu dhurayay ninka wasiirka dakhiliga ahi we need wixii loo baahan yahay dhammaan wixii guri laga iibsaday iyo wixii beer laga iibsaday in dib loo soo celiyo iyo wixii taangi la iibsaday iyo wixii dekad la iibiyay oo lacagta lagu soo shubo inta ummadda la dhex wareegayo muqorofada maran ninka waxa kamid ah Yamamoto waxa lagu culuubay ee uu sheegay development ayaa loo baahan yahay horumar dadka gaara ayaa loo baahan yahay intaabana wuxuu xaglinayay xagga dawladda federaalka oo ay dhex joogaan oo ay caalamkii u qireen wuxuu yiri waxaanu doonaynaa inaanu midayno marka intaas oo dhaqaalaha aanu soo dhisnay dekadii iyo airportka aanu gaarsiino heerka caalamiga ah dekada Muqdisho laga hadlaya tii laga iibiyay imaaraadka ee lacagtii la qaybsaday beeraha raaxada lagu dhistay maaha this administration is in a right path maamulka federaalku wadadii qumanayd buu ku taagan yahay halka daba ay sartu ka quruntay waa halkan wuxuu federaalka iyo regional government-ka tani way ku jirtaa heegalaanku waxay ka mid tahay maamul goboleedyada intaba waanu isu keenay waanu la hadalay tough negotiation si adag baanu u garnaqsanay si adag baanu la garnaqsadeen in la shaqeeyo ay dawladda la shaqeeyaan iyaga oo eegaya dantooda iyo danta ummadda Soomaaliyeedba ayaa loo baahan yahay laakiin sidee ayaa la idigu sheegi karayaa inay meeshu ahayd awsle muusaysan oo dushana ka Somaliland sida ay u yaqaanaan heegadu hoostana ka maamul goboleed heego wuu ku khasban yihiin inuu la shaqeeyo markuu Ethiopia tagay uu la hadlayay safiirada kale caalamka waa sidoo Yamamoto u sheegay waayo waxay isla qireen labada safiirba ninkan iyo kuwii ka horeeyay waa Muuse Biixi iyo maamulkii ka horeeyayba inay yihiin opportunistic oo bahalka la yiraahdo waraabaha danaysi iyo bob iyo dhac hore Soomaalidu u tiri hal laba midigle u leeyay dhanna uma faya qabo Turkiga EU-da iyo Mareykanka saddexduba dhaqaale dambe oo ay gelinayaan heegalaanka ma jirto halkaas la marinaya halkaana xisaab la iska doonayaa sidii hore wax gacan la isaga dhiibaya ma jirto ninkan European-ka oo ambassador-ku wuxuu yiri frustrated baanu ka noqonay markuu privately ula hadlayay dadka aqoonyahanka ee heegalaanka ka soo jeeda sida awgeed imika waxa kaliya aan doonayna waxa weeye sidii meeshan inuu civil war uga dhicin aan dagaal uga dhicin ninkan loo weedaarin lahaa option-ka kaliya jiraana waa in federalism la helo meel kale oo la mariyo lama garanayo
waxaanu dhammaan uga digaynaa ummadda Soomaaliyeed khaasatan kuwa reer waqooyiga ah inaan la marin habaabin oo waxa iyagu soo samaysteen oo ay doonayaan in meel kale laga soo sheego oo la yiraahdo Yamamoto iyo ninkan ku riixaya cidina ku riixi mayso waraaba dhankii loo eriyaaba waa u banaan Muuse Bixi iyo heegalaanta ayaa maraysa ila meeraalaysada sababtaas ninkan loogu yeedhay meesha Hargeysa la yiraahdo lacagtana loo siiyay ummadana hore ayay uga dharagsanayd waxa meeshan ay nimankani ku walaaqanayeen naxashka imika saaran ee soo dabar go'ay hore Soomaalidu u tiri awgaal nabar og yahay magagabiyo ummadda Soomaaliyeed disinformationka aad ha looga digtoonaado propagandada la wado dhammaantiin Ramadaan Kariim